Please subscribe, like and share. Thanks. عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا سمعناي سومالي محمد مالك استاذ أدونك كجوكتين وولاشين أبح ورسماء iyo maslaxiyare oo maaragtay idin dhahayaan mar kale taladii talaadada maanta barnaamijkan u hayno waxa weeyaan maslax oo jooga Muqdisho ayaan wareysanaynaa oo ka wareysanaynaa dhalinyarada iyo firfircoonaantooda iyo waxa aan ku arkay Muqdisho intaan joogay iyo horumarka wadankan ka socda iyo waxyaabaha wanaagsan iyo sida aan rabno annaga inaan dhalinyarada u dhiirigelino maadaama ay yihiin ayaga nuxurkii iyo meesha aan ka kacno iyo dadkii ayagana hogaamin lahaa iyo ubixi soo baxayay iyo kuwa la rabo inaan annaga gacanta siino maadaama ay yihiin ayaa waxaan u helay fursad walaalkay iga yar waxaan ku always waxaan dhahaa my young brother maslax oo aan u jeclahay ilaahay dartiis oo aan aad iyo aad ana u xushmeeyo asna u xushmeeyo walaalkay oo mar walba iga warqay waa inta joogay maxaa banaanka uga baahan tahay dhahayay inaan maanta wareysto oo chance u helo marka maslax ku soo dhawow barnaamijkeena waad ka warqabtaan taladii talaadada maanta qayb ka noqonaysa yes xaqiiqdii horta ma kayska farxadeeda qof lagu kaaliya qof maaragtay talented ah meesha joogay Soomaali inta san imaanin aha qof bulshada ka dhex muuqdo markuu yimid uu yimid inuu dalkiisa arko waxyaabo kala duwan oo maaragtay cashar uu ka qaato dhalinyarada uu dhiirigeliyo marka walaha aadooda ku timid alxamdulillah ma aad iyo aad ugu bogaadinaya waan faraxsanahay marka waa mahadsantahay maslax maadaama aan annaga nahay dadka qurbo joogta na dhexdiinaya xogaa waa na riixdiin dadka qurbaha jooga aan nahay anoo kale wadanka aan wax badan ka maqnaa haddana aan fursad u helay inaan soo noqdo alxamdulillah oo aan arko runta ka jirta wadanka gudihiisa wax banaanka aan ka maqalno waa wax ka duwan wax aan gudaha kala kulmay marka adiga maadaama aad tahay qof dhalinyaro ah oo wali waxbarashada ku jira waxbarashada qaybo badan oo ka mid ah dhameeyay anna iskuuladii aan tagay oo aan soo arkay waxbarashadii iyo sidii u socotay dhalinyarada aniga yiri diina igilisay adiga maxaa isleedahay haddaad tahay dhalinyaro nin ah oo ku nool magaalada Muqdisho oo mustaqbal rajaynaya oo wax baranaya waxna bartay maalin u socoto maxaa isleedahay guush aad inay gaartay ama hamigaaga iyo waxa ku fikraysid maxay tahay waa fikir aad u wanaagsan waan soo qiimo leh Soomaaliya waxa la qiyaasaa markii hadda la fiiriyo 75% dadka Soomaaliya ku nool dhalinyaro Soomaaliya markaa fiiriso dhalinyarada haysta kaliya iskuma xirno laakiin markii gaar u fiirso waa dhalinyaro talented ah fikir badan u hayo horumar badan oo soo soo kordhin lahaa maasha Allah waxbarashadu aad u wanaagsan tahay laakiin in waxbarashada la taageero in dhalinyarada la horumariyo waxay ka go'aan maamulka sida markaas joogo dadka maaragtay arrimahaas ku hoogan laakiin dhalinyaro ahaan marka laga hadlayo dhalinyarada waa dad maaragtay ambition aad u sareeya leh isla markaasna waxbarasho diyaar u ah adduunka inay jaan qaadan u diyaarsan waxbarasho iyo inay wadankooda si nabad leh maaragtay ugu noolaadaan horumarkiisna ay ka shaqeeyaan warwalba u diyaarsan waa dhalinyarada maasha Allah marka waxay leeyihiin hami aad u sareeya ha dad badan baa u maleeya inay dhalinyarada rabin inay wax bartaan ama inay dadaalaan marka laakiin taas waa ka duwan tahay Soomaaliya taas been waay maaragtay waa war social media la soo geliyay laakiin dhalinyarada wallahi aad bay maaragtay u jecel inay wax bartaan horumar gaaraan sababtoo ah tirada ugu badan wadankana waa iyaga dadka maanta wadanka shaqo la'aan ku haysan waa iyaga dadka dhibaataysan waa iyaga marka si ay intaas ugu gudbaan waxay u baahan yihiin inay exercise ay sameeyaan maaragtay inta badan maskaxda ay ka shaqaysiyaan wadankoodana ay horumar u horseedaan okay marka adiga dhalinyaro halkan ku nool maslax maadaama qof dhalinyaro aad tahay oo wadankan aad adiga tahay dadka maanta annaga markaan nimaadno akhbaaro badan iyo xog aanan haynin haya maxaa isleedahay dadka anigoo kale ama qurbaha jooga oo fikrado badan ka haysanin wadanka iyo dhalinyarada maadaama dhalinyaradu ay tahay 75% inta dadka ku nool oo soo kacay maxaa nagu dhihi lahayd ama maxaa anaga noo sheegi lahayd maxaa nagu la talin ama maxaa naga sugaysiin ama maxaa naga rajaynaysiin oo dadka anigoo kale ah oo qurbaha jooga oo u sheegi lahayd horta sanadihii la soo dhaafay ilaa burburkii dalkeena ummad badan oo Soomaaliyeed dibadaha aaday qaar baa waxay gaan soo heleen inay wax bartaan waxbarashada waliba heer sare ay ka gaaraan marka inta badan dadka diaspora lagu magacaabo locally markii aan fiirino markay soo laabtaan waxay iska dhigaan dad bosses ah dad bulshada ka sareeya dad maaragtay laakiin actually marka dareemaysid wadankooda inuu dhibaataysan yahay dhalinyaradooda inay bala shaqo yihiin waxbarashada ay soo bartaan inay maaragtay ay tahay in dalkooda ay gudgeliyaan لكن ما شاء الله هرتا ما تكاجي يفرق عن ذا شكله هذا هيسي
oo kale horta cidkiis aad u yar tahay marka kuwa ka dambeeya ku nool wadamada horumaray ee wax bartay aniga waxaan kula talin lahaa inay wadanka soo booqdaan xaqiiqada jirta ay arkaan jaamacadaha ay tagaan iskoolada ay tagaan haddii macquul tahay xitaa macallimiin ay noo noqdaan oo cilmigii ay soo barteen ay maaragtay wax nagu soo saacidaan dib idinku soo celiyaan iyo waxbarashadii iyagana dadka ay la wadaagaan waxay soo barteen sababtoo ah meeshan waxaa jirta waxyaabo badan aniga noo saameeyay inaan barano marka maadaama waxaan leeyahay dadkii wax bartay oo meesha joogo dalkan maaragtay idinku dhibaahan yahay ku soo laabta dhalinyarada dhiirigeliya ee la wadaago waxaa soo baratay maasha allah marka fariinta aad annaga noo dirayso dadka wadamadan ka nimid ku nool ama meel walba soomaalida ku nool oo aan wadanka gudihiisa ma ahayd dibadiisa ku nool oo wax soo baratay fariinta aad u dirayso adiga oo dhalinyarada adoo afkooda ku hadlaaya yeysan ayaga ku dhihin noo hadal laakiin adoo dareemaya waxa ka jira ayaad waxaad nagu boorinaysaa oodna weydiisanaysiin in inteenna wax baratay iyo soomaalida meel kastay ku nool yihiin oo dadka soo bartay wax oo dibadaha jooga in wadankii uu u baahan yahay oo waxay soo barteen idinka aad u baahan tihiin oo hadday noqoto macalinimo iyo hadday noqoto motivation in la idin motivate gareeyo laidin dhiirigeliyo iyo hadday noqoto in xataa mentorship ama qof ku tiirsan oo qof fiirinaya in la idin noqdo wax aad hiigsataan oo aad tiraadeen qofkaasoo kale aan rabaa inaan noqdo oo waxbarashadii ayagana ay soo barteen ay dib idinku soo celiyaan taas way fariinta ugu weyn oo aad noo farayso soo ma aad iyo horta dadkaas adiga kow ka tahay maadaama shakhsiyadaada maasha allah oo aad muhiim u ah bulshadana anfacaya ahayso laakiin inta badan dadka soo laabto waa dad jaanis gaada tusaalahaan dadka gudaha wax ku baranaya jaamacadaha markay dhameeyaan waxaa laga doorbadaa in positionkii ay gali lahaayeen loo qaato qof wadamada dibadda ka yimid halkii asiga wax lagu soo kordhin lahaa waxaa laga yaabaa inuu dhibaatana hooseeyo aan geli lahayn already isku asaga uu galo hal mar marka ku soo celi taas macaatil nacam qofka dibadda ka yimid intuu asaga wax idinku soo kordhin lahaa waxaa laga yaabaa maxaa tiri marka waxaa laga yaabaa waxaa jira dad badan oo Soomaaliyeed dibadda ka imaanayo wax soo bartay xilligii ahayd inay markay waddanka imaadaan ay ka qayb qaataan qaybaha waxbarashada horumarka bulshada meel walba ee bulshada hadday tahay caafimaad hadday tahay adeega bulshada hadday tahay waxbarashadii meel walba inay involvement ay ku sameeyaan oo dhalinyaro wanaagsan ay soo saaraan waxay u soo bartaan ummadda u faa'iideeyaan halkii ahayd inta badan horta waxay soo doontaan shaqay soo doontaan ayaga u imaado shaqo inay meesha uu ka helaan haadiya markaas dhalinyaradii waddanka wax ku baratay niyadshada u horseedaan saasaan dhihi karnaa qaar ka mid iyo dadka maanta meesha ka imaanaya sababtoo ah inta badan qofka muqdisho joogo iyo qof kale maaragtay waxaa la doorbada hay-adaha iyo dowladda iyo meelaha shaqooyinka laga helo waxay doorbadaan qofka dibadda ka imaanaya inay shaqaaleysiiyo ayagoo laga yaabo inay isku cilmi leeyihiin isku shahaado wataan waxbarashada isku heer ka gaareen waxaa laga shaqeynaa xogtooda uu aad ugu sareeyo qofka waddanka jooga uu xogti aad u og yahay ayaa waxaa laga yaabaa markuu qofka dibadda ka yimid uu yimaado oo waddankii waxba ka ogeyn sida anoo hadda 3 sano ka maqnaayoo kale shaqadii adoo kale aad heli lahayd oo jaamacad halkan kaga soo baxay inuu qofkii annagoo kale ahaa oo dibadda ka yimid uu idinka qaato taas marka waxaad leedahay waa in wax laga bedelo maasha allah fariin aad u wanaagsan weeye bedelkeedana waxna anfacaynoo keena idinka waxaa naga qaadanina maya fariin weyn oo culus baad u fartay waad maqlaysiin maslax waxa weeyaan dhalinyarada halkan joogto ayuu hayaan inuu yahay oo ayagii u hadlayaa afkoodii siday dareemayaan waxaan dareemayaa qof kastoo dhalinyaro ah maanta aniga isku baayana wuxuu dareemayaa waxa aan dareemayo waxaa ka maqan inta iga maqan barka maqan maasha allah marka adigu waxaad dareemaysaa qofka adigoo kale dhalinyarada ah wuxuu dareemayo sida adigu hadda hadalkaad leedahay waa wax ayaga qabaan kulligood marka intii sida hadalka uu kugu jawaabayo waa marka waxay aaminsan yihiin dadka ka yimid dibadaha oo wax ku soo bartay in intay iyaga wax u kordhin lahaayeen dadka waddanka yimid ay ka shaqaystaan waxay u imaanayaan inay ka shaqaystaan oo ayagii ay positionkii qofka adoo kale jaamacadda ka soo baxay uu heli lahaa iyaga carqalad ku noqdaan ay ka qaataan fursadii marka taas waxaa leedahay fariintaas aa u diraysaa walaalyaalow naga daaya idinku noogu imaada haddaadan naga dayna xataa naga yareeya hadda xaalad halkaasay joogtaa haddaadan dayn karinna naga yareeya mar walba nacamniyadda ku haaya annagu meel kaloon waxaad leedahay annagu meel kaloon aadnama haysano waddankii baan joognaa
fursadaad idinku haysatiinna ma haysano Wasax. positionkii anigu maanta aan raadsan lahaa adigu ha igu ciriiri weeye si annagii aan ku helno chance ilaa waxaad rabtiin inaad shaqaysatiin wadankii wax ka soo saaratiin marka qofkii inta meel kale ku soo dhaqmay raba inuu shaqadiina idinka qaato waa inuu system kale iyo si kale ku shaqaysto uu raadiyo idinka idinku ciriiri maya hoos inta badan waxaa muhiim ah xitaa dad badan oo Soomaaliyeed way jiraan dowladaha ka yimid process muhiim ah hayo صح xitaa dowladdeena maanta markaa fiirino processionada ugu muhiimsan dad diaspora hayo صح muxumo meel hadii lagu dhiibo laakiin isbedel waa inaad keentaa waa inaad horumar noo horseedaa ما شاء marka الله haddii xitaa positionkii inta aad fariisato keliya danahaagii gaarka Aad ka iyo fushato. aadiya oo dhallinyaradiina u qabanin ilaa صح. guud ahaan dalkii صح. markaas waxay noqonaysaa inaad position weyn aad la tagtay ayada laftigeeda caqabad noqonaysa caqabad kale noqonaysa. marka haddaad xataa nacam waxa marka leedahay haddaa waan xitaa ognahay imaado Ah. oo shaqo aad ka hesho صح. dalka waa dalkaagii waan صح. jecelnahay صح. waxba laguma diidana صح. balse waxaad samaynaysaa markaas ka fikir dadkan noloshooda inaad wax ka wax bedesho ka bedeshid Aad marka iyo- la imo isbedel aad iyo- oo aad iyo. positive ah Mhm. wax fiican oo isbedela la imo waxay baad waxaa saas ku leedahay. leeyahay dadkan inta badan wadamadaas jaamacad kusoo dhameeyey Mhm. waxay kusoo koreen ama aan dhihi karaa ay wax kusoo barteen wadamo systemkooda aad u wanaagsan yahay صح marka ibni aadanka dalkiisa asaa bedelo dadnimadiisa asaa bedelo waa صح intaan hadda Soomaali ay burbursaneed dadka inta badan hoggaanka noo hayay waxay u banaayeen dad inta badan xitaa haddii madaxda aysan meesha ka imaaneen xitaa dadka la shaqeeya dadku maaragtay meelaha muhiimka ayo dad meeshaas ka yimid صح marka almost intaas waxaan aaminsanahay system maadaama dadkaas meel system ka jira ay ka yimaadeen صح. waa inay meeshii tusaale ay kasoo qaataan markii ay noo imaadaan wadankaasi siduu maaragtay u tusaalihii horumaray fiicnaa ee halkan ay lagu meesha la yimaadaan. yimaadaan Aysan la Laakiin imaan wax kale aad oo iyo aad iyo qaldan. aad iyo aad iyagoo xoogaha dad wanaagsan ay imaanayaan wax yar kadib after 2 months meelahaas musuqmaasuqay dhexda kaga ayagii yaa dhexda ka galaya Aad iyo aad, aad marka iyo nacam waxa weeyaan waa arrin wanaagsan Marka, ayadana meesha ay ka socoto صح maaragtay inay kala jaan qaadaan oo Ah. iyagana ay noqdaan dad calashas Wax wanaagsan. shaqaystayaal ah inay ma aha inay noqdaan Ah. dad caloosha u shaqaystayaal ah Aad iyo laakiin waa inay noqdaan dad Aad iyo aad. structure-ka iyo maaragtay systemka wanaagsan oo ay kala yimaadeen meelahaas Aad iyo aad. inay annagana nooga faa'iideeyaan baad leedahay Aad iyo aad. wadankii dib ugu socdaan wax wanaagsan ee aysan ayagu noqonin qayb ka mid ah dhibaatooyinka wadanka iyo iyo aad, carqaladii aad iyo aad, may waa wallaahi fariin wanaagsan weeye waanan qadarinaynaa waxaan rajaynayaa dad badan inay fariintaas intay dhegaystaan Aad iyo ay si fiican u dhuuxaan ay ugu dhabagalaan hadda waxaan arkay intaan wadanka imid ama meel kastoon ka hadlo ama fariin kastoon gudbiyo waxaan ku soo xiraa inaan idhaahdo oo dhallinyarada dhan aan u faray wadooyinka waxaan ku arkay qashimo badan oo yaala Aad iyo aad. bulshada inaysan xoogaa u furfurnayn Aad iyo in qashinkii ay iyagu dhulka ku tuurin marka fariin kastoon samaynaya hadda Soomaali aan ka hadlayo ama Soomaaliya ama dadkayga aan ku dhiirgelinayo Sax. waxaan ku soo gabagabeeyaa hadda inaan idhaahdo qof walbo annaga naga mid ah haddaanan qashinka bannaanka ah annagu qaadi karin qashinka annaga aan wax ka cabno ama mooska annaga fiiqano ama annaga qashinka annaga aan samaynayaanan jidka ku tuurin ee aan annaga qashinkeena keliya bal horta xafidano marka adigana dhalinyaro maadaama aad adigu represent garaynayso adiga iyo asxaabtaada idinkana campaignkan aniga hadda aan qaaday inaad idinkana nala qaadina rabnaa aad iyo aad. oo aad fariintaas isfartiin aad iyo aad. adi haddaadan jidka aruurinayn kaaga ha ku tuurin aad iyo aad. system ah inaan marka aan ka shaqeyno waa sax barnaamijkaas magaalo aad buu ugu jiraa marka inta badan dhalinyaradu waxay u baahan yihiin awareness Wacyigelin badan, maskaxdooda la haa. bedelo Sax. in maaragtay nolosha wax badan laga fahansiiyo صح marka wadankan inta badan waan ognahay waa wadan fooday iyo dowlad aan ka jirta in ka badan 30 sano Sax. marka in dadkiisa ay fahmaan waxyaabaha rasmiga ah iyo sida sistemada adduunka looga dhaqmo Sax. aad bay u adkaanaysaa hase ahaatee waxaan Laakiin hadda waa la soo fahmay, aad sooma? iyo aad waa la soo fahmay waana dadaalnaa dhalinyaro ahaan waa iskaashanaa dadaal badan waa sameynaa Sax. marka wacdiga inta aan awoodno waa gaarsiinaa Masha marka waxaan Allah. rajaynaynaa dad badan inay qaadan doonaan inay meesha ka daawan doonaan qaar badan aniga u gudbinay Masha marka Allah. insha Allah dadaalka dhankeena ka wadnaa Sax. waan rajaynaynaa Soomaaliya oo clean ah Masha Allah. Maya, insha Allah. إن شاء الله هذا لفتجيدا سومالي والله وحيابها أنكو أركي وناج يهرمرك ووح أن السوق كوركرين رجع أنا قدنا وحا إن جلسي أنا هذا كل علينا يا وركاليا أو إمادة أو كفائدة أو ضد كفائدة ووح ونكتب الصو أركي إذن كان وإن سيدو كلا أنا إذن كبس عاوننا أو وده كان أنا جاوض له عدنا عد كلا نوع ما نسنوها قاعدين نسوي كأنه ماله ضد كتشوجا ضد كمقن
Soomaali oo dhan haddaan nahay waa inaan isku kaashano aan waxaan isku caawin karno intaan isku caawino aan annaga gurigeena hagaajisano marka insha Allah inaan nadaafada ku dadaalno oo dadkii wacyigelintii badino oo dhalinyaradii ay isku kaashadaan oo haddii xataa qofka banaanka asaga nadiifinayn kiisa kaliya uu ku tuurin weeyaan meesha oo aniga rajadeeda insha Allah waa sax sababtoo ah qof haddii xitaa uu maanta dibadda u tago US ha joogo ama meel kasta ha joogo meeshaas wuxuu ka yahay qof maaragtay mar walba immigrant ka yahay marka wadankana wada leenahay soddon sano xagga joogay wadankiisa hooy waa inta reerkiisa degan qaabiisa degan dadkiisa degan Soomaali waa walaalay Soomaali iyadoo idan waxaan aaminsanahay hal inay tahay marka gabar kasta Soomaalina waa walaashay wiil kasta waa walaalkay oday kasta waa aabahay maamo kasta hooyaday ma sha Allah marka dadka inay fahmaan nolosha inay fahmaan dadnimada marka mideeda kale wiliga Allaha qof inta ku imaado gurigaaga taaga shaqay hormar ku horsaday ma jiro wax walba adiga waa inaad samaysataa marka dadka wax bartay dibadaha ku nool iyo dadka maaragtay inta badan u dhaqaaga bulshada iyo dhalinyarada wadanka iyo dadka maaragtay inay organize ay sameeyaan wadankooda ay ka shaqeeyaan maaragtay si wadanka u noqon lahaa wadan walba waxbarashada iyo bulshada marka annaga inaan ka shaqeyno weeye maslax aad iyo aad u mahadsan tahay maanta aad u faraxsanahay in aad fikradda adiga iyo waxa kugu jira annaga naga maqan aad adiga nagu kordhiso oo la wadaagto dadkeena walaalaheen oo dhan dhalinyaro iyo waalidiinba anigana waalidiin anoo kala ah oo dhalinyaro idinkoo kala wali korinaya iyo adiga dhinacaaga oo dhalinyaradii aad u joogtid inaad adigana maaragtay annagina dhiirigelisid oo wacyi gelisid oo nagu kordhisid aad ugu faraxsanahay anigana aad ugu faraxsanahay sidoo kale inaan isla kulano waqti badan qaadano aan isaragno maaragtay cilmi badan aan ka faa'iido waxaan ku leeyahay soo dhawo waa mahadsan tahay markii ugu horreysay maahan Soomaali ma doonto waa soo noqonaya waa soo noqonaya insha Allah wax badanna waa ka wada shaqeynaynaa dadkiina waxaan ku celinayaa wax wanaagsan inay meeshan taalo wadankii yaalo idinkana aad u baahan tihiin inaan annagii idinkii hal ahaano waana iswacyi gelinaynaa qofka maalintiisa ma dhaafayo cabsida iska daayay kala dhibaatadina la qabsado ilaahay wuxuu idin qalbaad helaysiin ee kala dhibka la qabsada waa arrin badan fiican oo ku xirno aad u mahadsan tahay maslax fadlan ajradan share gareeya la wadaaga asxaabtiina de subscribe gareeya de waa maxay bahasha naga daaya waa mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh